waxaan dhammaanteen wada ognahay in diinta islaamku tahay diinta ugu saxsan caalamka qof walba dunida saaran ay isaga dan u tahay in uu qaato muqaalkeenana waxaan ku soo qaadan doonaa dad ku dhashay diimo kale oo markii ay fikireen kadib sababa layaab leh ku qaatay diinta islaamka Yusuf Estes waxa uu dhashay sanadku markuu ahaa 1944 waxa uuna ka dhashay qoys masiixiyada aad uga adadka isaga iyo aabihiisna lagama mari jirin xagga masiixiyada waxaana islaamnimadiisii sabab u ahaa wiil Masri ah oo ay ganacsi ka wada dhaxin jireen qodbadu Yusuf Estes jeediyay ayuu uga hadlay arinkaas waxa uuna sheegay in wiilkaasi uu aad u soo jiitay la dhaqankiisa wanaagsanaa iyo ilaalinta balanta iyo waliba sheegista runta waxa uuna sheegay in maalmaha kamid ah ay weydiiyeen wiilkii Masriga ahaa diintaada meeqa kitaab ay leedahay wiilkii Masriga ahaa ayaa ku dhahay waxaan isticmaalnaa hal kutub oo kaliya arinkaas ayaana Yusuf Estes ku reebay layaab maadaama ay dhamaan qoyskiisa ay kala haysteen Bible kala duwan maalinkaas wixii ka dambeeyay ayuu galay baarista diinta islaamka isagoo markii dambana qaatay diinta islaamka isaga iyo waliba xaaskiisa isagoo noqday daaci weyn oo diinta faafiya wuxuuna aasaasay TV islaami ah oo lagu magacaabo God as TV waxaana sababtiisa ku soo islaamay in ka badan 10 ruux hadda waa 75 jir faafiya diinta islaamka Daawud Kim waa wiil aad looga yaqaan barta YouTube-ka in ka badan 700 oo kun subscribe ayaa ku xiran safxadiisa YouTube-ka inta uu islaaminna waxa loo yaqaanay Jane Kim wiilkan waxa uu ka dhashay qoys diinaawayaal ah ama waxa loo yaqaan atheist waxa uu sheegay in marka hore diinta islaamka ka aaminsanaa diin xun balse markii uu tagay wadamo islaam ah ayuu arkay inay qalad ahaayeen wixii uu iska dhaadhicin jiray maadaama uu arkay dad qalbiyo wanaagsan soo dhaweeyna leh markaas wixii ka dambeeyay ayuu bartiisa ku soo daabici jiray waxyaabo ku saabsan diinta islaamka isagoo isku dayay inuu barto wax walba oo la xiriira ilaa heer uu ugu dambeyn 15 bishii tagtay ee September 2019 uu qaatay diinta islaamka isagoo bartiisa YouTube-kana ku soo daabacay waxa uu sheegay in saaxiibadiisa haysta diinta islaamka ay u sheegeen in marka ay dhintaan kadib helayaan jannooyin isagana uu doonayay jannadaas Malcolm X waxa uu ahaa halgamaa madow Amerikaan ah aadna ugu doodi jiray xuquuqda dadka madow aadna u jeclaa in mar uun ay sinaadaan madowga iyo cadaanka Mareykanka Malcolm waxa uu dhashay May 19 1925 Malcolm waxa uu soo maray xabsi iyo nolol aad u adkeyd sanadku marka waa 1975 ayuu ku beeray Nation of Islam ama dawladda islaamka xilligaas ayuuna qaatay diinta islaamka isagoo u qaatay inay tahay diin loogu talagalay dadka madow oo kaliya balse goor uu tagay xajka ayuu kula kulmay dad madow iyo cadaan iyo gaduudba leh oo dhamaantood ah muslimiin isagoo halkaas ka meertay fikradii ahayd in islaamku uu qaas u yahay dadka madow xikmadihii caanka baxay ee uu madfaca camal ugu ridi jiray gaaladii cadeed waxa kamid ahaa kalama saari kartid nabadda iyo xornimada sababtoo ah qofna nabad ma heli karo isagoonan xornimo haysan ugu dambeyn Malcolm X waxa la toogtay isagoo qudbeynaya February 21 1965 halkaas ayuuna ku geeriyooday shahiidkii xornimada u dhintay Mike Tyson waa shakhsiga leeferka aan dhagaxa waxba dhaamin ee lagdinta culus waxa uu dhashay 30 June 1966 Tyson waxa uu soo maray nolol aad u qaraar isagoo taraagle xitaa noqday balse markii dambe ayuu noqday shakhsi feertanka aad ugu fiican oo aanan la dhigin dhulka ugu dambeyn Tyson waxa uu qaatay diinta islaamka isagoo ugu dambeyn 2010 booqday magaalada barakeysan ee Makka si uu xajka u guto Sinead O'Connor waxa ay dhalatay 1966 waxayna ahayd fanaanad aad looga jeclaa wadanka Ireland Sinead 2018 October ayay qaadatay diinta islaamka waxayna tiri kelmad cajiib ahayd diinta islaamka waa safarka iyo masiirka qof kasta oo aqli leh magaceedana waxa ay u bedeshay Suhada qofka barnaamijkeena noogu dambeeya waa halyeekii weynaa ee Mohamed Ali Kalay waxa uu dhashay Janaayo 14 1942 inta uu islaamka qaadanna waxa lagu magacaabi jiray Cassius waxa uuna ahaa halyey feer culus wuxuu guursaday 4 mar 9 caruur ahna wuu dhalay Mohamed waxa uu diinta islaamka qaatay sanadku marka uu ahaa 1961 sidoo kale Hollywood Walk of Fame oo ah meesha lagu qoro xidigaha baalka dahabka ka galay Mareykanka Mohamed waa ninka kaliya ee aan magaciisa lagu qorin wadada ee darbiga lagu qoray isagoo diiday in magaca rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam in lagu qoro laguna kor socdo Mohamed Ali Kalay xigmadihiisa hirgalay waxa kamid ahaa saaxiibtinimadu waa magaalo xiran oo kale
wadada kaliya ee lagu soo gali karaana waa daacadnimada. waxa uu geeriyooday 16 Juun 2016. dhammaan waxa ay ka wada sinaayeen ka dhalashada guriga diinta islaamka laga necib yahay, balse waxay diinta uga fiicnaadeen kuwo badan oo ku barbaaray guriga diinta islaamka laga jecel yahay.